habeen wanaagsan daawadayaal kusoo dhawaada caawiya caalamka waxaan ahay cabdiraxmaan bidhaan wararkana waxaa ugu waaweyn dhaleeceyn ayaa dusha lagaga tuuray madaxweyne Trump oo lacagtii Mareykanka ka joojiyay hay'adda caafimaadka adduunka ee WHO isagoo ku eedeeyay siday u maareeyeen safmarka fayraska corona warbixin dheeraad ah ayaan idinka haynaa khilaafka WHO iyo Mareykanka wararka kale ee safmarkana waxaa ka mid ah sida kooxad waraaq sharci ah oo BBC-du ay heshay garyaqaano Moroccan ah ayaa dacwad u gudbiyay xeelaalinta guud ee Faransiiska iyagoo haysta laba dhakhtar oo Faransiis oo lagu eedeeyay inay ku kaceen fal cunsurinimo ah oo ku saabsan coronavirus caawna waxaanu eegaynaa waxa ka dhex socda qaybta daryeelka degdega ee cisbitaalada lagu daweynayo dadka uu haleelay fayraska corona kala soco BBC News Somali telefishinka raadiyaha online-ka iyo baraha bulshada halkan waa BBC London caawiya caalamka hogaamiyaasha caalamka dhakhaatiir diblomaasiyiin ayaa iyagu weeraray tallaabada madaxweyne Trump uu ku hakiyay lacagta Mareykanku siin jireen hay'adda caafimaadka adduunka ee WHO Mr Trump ayaa sheegay in hay'adda WHO ay si xun u maamushay safmarkani adduunka ka dilaacay wadamo badan ayaa iyagu laakiin waxay leeyihiin waqtigani ma aha waqtigii lacagtaasi laga jari lahaa hay'adda Mareykanku waa dalka ugu weyn ee lacagta siiya hay'adda caafimaadka adduunka sanadkii hore waxay siiyeen 400 oo milyan oo dollar waa 15% miisaaniyadda guud ee WHO waa kan Mawlid Xaaji Cabdi oo eegaya xiisada hay'adda caafimaadka adduunka iyo madaxweyne Trump iyadoo cudurkan iyo dunida uu ku faafayo dalal badan ayaa kula dagaalamaya fayraska qaab iyaga u gaar ah ma jirin wax badan hanaan iskaashi caalami ah hal urur oo la wadaagaya khibradiisa iyo talabixintiisa waa hay'adda caafimaadka adduunka oo hoos tagta qaramada midoobay hadda waxay wajahaysaa culays boqolkiiba 15 dhaqaalaha ayaa laga jarayaa waa ku dhawaad 500 oo milyan oo dollar taasi oo uu sameeyay madaxweynaha Mareykanka Today I'm instructing my administration to hold maanta waxaan farayaa maamulkayga inay hakiyaan maalgelinta ururka caafimaadka adduunka inta dib loo eegayo doorka ururka caafimaadka adduunka health organizations role iyo si xun wax u maamulka iyo dahsaarista faafitaanka fayraska corona Xabaarinta Trump waxay ku jahaysan tahay sidoo ururka u maareeyay bilowgii faafitaanka cudurka ee Wuhan isagoo ku eedeynaya inay ka gaabiyaan inay helaan khubaro xilli hore isla markaasna ku guuldareystay ururku inay ku dhaliilaan Shiinaha hufnaan la'aan dhammaan waxaasi madaxweynuhu uu sheegtay waxay garaafteen nolosha kumanaan kun oo qof waxayna u geysteen dhaawac dhaqaalaha adduunka Shiinaha afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda wuxuu sheegayaa in dawladdiisu ay walaacsan tahay safmarkan caalamiga meel halisa ayuu marayaa waqtigan waxaana moodaa in go'aanka Mareykanku uu ku gaaray inuu ka joojiyo hay'adda caafimaadka adduunka lacagtii uu daciifin doono awoodeeda ay wax kaga qabanaysay WHO ayaa wajahaysa dhaleecayn inay dhinaceeda hoos u dhigtay suurtagalnimada faafitaanka in cudurka bini'aadamka isqaadsiiyo ayna u muuqatay inay ku guuldareysteen inay cabaareeyaan Shiinaha laakiin waxaa yar taageerada adduunka oo dhan waxaan rumaysanahay inay tahay waajib in la taageero WHO ayna muhiim tahay dadaalka adduunka ee ah in lagu guuleysto dagaalka ka dhanka ah COVID-19 At a time like this where we need xilliga caynkana oo aan u baahannahay macluumaad wadaagid oo aan u baahannahay talo aan ku tiirsanaano ururka caafimaadka adduunku wuu bixiyay taa waana inaan sii wadnaa inaan taageerno oo aan sii wadnaa tabarucaadda Donald Trump dareen ahaan kalsooni kuma qabo ururada caalamiga ah laakiin dadka dhalinyarada ayaa leh weerarkiisa WHO wuxuu ula jeedaa inuu ku qariyo sida xun ee u maamulay fayraska ku dhuftay Mareykanka halkaasi oo lagu eedeynayo inuu si gaabis ah u bilaabay waxqabadka iyadoo Amerikaan badan silcayaan una dhimanayaan COVID-19 in ka badan adduunka intiisa kale haddaba hay'adda caafimaadka adduunka ayaa waxay tahay oo ay door weyn mid ka ciyaaraysaa kaalmada Afrika waqtigan safmarka caalamiga lagu jiro wadamo badan ayaa iyagu kuba tiirsan mucaawinada iyo kharashka ay ka helayaan WHO way adag tahay in la yiraahdo deeqda Mareykanku Afrika ay tagtaa badankeedu laakiin Afrika waa meesha kaalmada ugu badan ee WHO hesha miisaaniyadda Afrika loo qoondeeyay xilli miisaaniyadka 2020 iyo 2021 waa ku dhawaad 1 bilyan waxaana lacagtaasi loogu talagalay dadka Afrikaanka ah inay caafimaadka kaga shaqeeyaan sida safmarkan oo kale
haddaynu eegno xagga caalamka qaybihiisa kale waxaynu arkaynaa caalamka ilaa ammintan aynu joogno waxaa la xaqiijiyay dad gaadhaya 2 milyan oo qof inuu fayruskaasi ay qaadeen oo iminka uu haleelay waxaana dhintay 127,601 qof oo ilaa hadda uu galaaftay fayrusku dhanka africa waxaa laga helayaaba la leeyahay oo laga helay fayruska aan idhaahda ilaa hadda 16,400 oo qof iyadoo haddaba wadamada qaar ay bilaabayaan inay dabciyaan xayiraadahooda wadamadaasi oo ka mid a yurub ayaa midooda yurub waxa uu xubnihiisa kula taliyey inay si tartiib ah u dabciyaan bandooyada saaran wadamadaasi dalka denmark ayaa markii ugu horreysay ka mid ahaa wadamada yurub ee xayiraadaha markiiba soo rogay laakiin hadda waxay bilaabeen inay dabciyaan waxoogaa dugsiyada hoose ayaa maanta dib loo furay sidaad halkan ka arkaysa dalka jarmalkana hogaamiyaha jarmalka chancellor angela merkel ayaa wadahadallo la yeelatay madaxda maamulada federaalka jarmalka iyadoo lagu gorfeeyey bal sida loo dabcin karayo xayiraadahaasi iyo waqtigooda madaxda ayaa go'aamisay in ilaa 3 May xayiraaduhu ay socdaan jarmalka waxay gaadhay dhimashada guud 3,000 oo qof waana tir aad uga yar markaad eegto wadamada ay jaarka leeyihiin ee yurubta galbeed ra-iisul wasaaraha India Narendra Modi ayaa maanta ku dhawaaqay in wadanku uu ku sii jiri doono xayiraad ilaa 3 May si looga hortago faafitaanka viruska corona guud ahaan dalka Hindiya oo ay dadkiisu gaadhayaan 1 bilyan ayaa 3 toddobaad ee lasoo dhaafay waxay ku jireenba xanibaad iyadoo ay kordhayaan kiisasku wariyaha BBC Delhi Yogita Limaya ayaa warbixinta soo dirtay waa kan Mawlid Xaaji Cabdi waan gartay waynu kusoo noqon doonaa warbixintaas bal iminkana aan eegno qodobada kale ku jira wararka caawa boqorkii kabanka xudaydi ayaa maanta lagu aasay magaalada London ilaahay ha u naxariistee Axmed Ismaaciil Xuseen Xudaydi oo 8 bishan Abriil ku geeriyooday London ayaa waxa uu ahaa da'diisu 29 jir aaskiisa waxaa ka qayb galay dhowr iyo 10 qof oo isugu jiray ehelkiisa iyo qoyskiisa xudaydi Allah u naxariistee wuxuu 1928 ku dhashay magaalada Berbera waxaana uu dhalinyaronimadiisii ku soo qaatay magaalada Cadan ee dalka Yemen ka hor intii aanu Soomaaliya ku soo noqon Allah u naxariisto marxuumka dowladda koonfur africa ayaa diiday dalab kaga yimid shirkadda diyaaradaha ee dalkaasi South African Airways oo xaaladda dhaqaale xumiya ay la soo gudboonaatay shirkadda ayaa codsatay $1 bilyan oo ah kharash degdeg ah shirkaddani wax faa'iido ah may samayn tan iyo 2011 3 sano ee u dambeysay dowladdu waxay ku baritaartay $1 bilyan iminka waxay joojisaa inta badan duulimaadyada gudaha iyo dibaddaba iyadoo lagu jiro safmarka caalamiga ah dalka ruushka caasimada Moscow ayaa gaadiidku xanibay maanta safafno loo galay tareemada dhulka hoostiisa maray metroga waxaa bilaabmaya hab lagu xakameynayo socodka dadka oo iminka la siiyay liisamo digital ah oo aad online ka dalban karaysid ruushka ayaa shaaciyay tiro badan oo qaaday koronaha oo iminka weerarada mar qoloon gaadhay 3,000 oo qof malaayiin qof oo reer Kuuriyada Koonfureed ayaa dhiibtay codkooda maanta iyadoo fayadhowrkana aad loo adkeeyay waa doorashadii ugu horreysay ee qaran ee la qabto waqtiga lagu jiro safmarka caalamiga ah ee coronavirus 11 milyan qof ayaa iyagu habka boosta hore ugu sii dhiibtay codkooda laakiin dadka intiisa badan ayaa goobaha codbixinta tegay kuwaas oo Jimcihii iyo Sabtidii la rakibay waa tahay waxay noo soo socdaa warbixintii Hindiya oo uu soo jeedinayo Mawlid Xaaji Cabdi iminkana waxaan u gudbaynaa warbixinta ku saabsan dalka Hindiya oo uu inoo soo jeedin doono Mawlid Xaaji Cabdi goobta xuduudka u ah fayraska koronaha ee Hindiya booliiska ayaa drones ku eegaya magaalada waynu arki karnaa haddii aad guryaha ka soo baxdaan ayay ku dhawaaqayaan luuqyada isku raranta Mumbai shaqaalaha caafimaadka ayaa isku dayaya inay aadaan guryaha halka qol ka kooban si ay dadka astaamaha uga baaraan magaalada waxaa ka jira kiisaska iyo dhimashada ugu badan ee COVID-ka gudaha Hindiya laakiin kuwan safarka hore ku jira ayaa leh xaqiiqdu waxay ka naxdin badan tahay tan tirakoobka waxaan la hadlay dhakhtar ku sugan cisbitaalka dowladda maamusha ee ku yaala Mumbai ma doonayo in la aqoonsado sabab aargudasho dowladda uga timaada Yes, we are under testing, under report. ha baaritaanka iyo warsoo gudbintuba way hooseeyaan maalin halka 6 bukaana la keenay oo neefta ay ku dhigtay oo meyd ah xitaa lama baarin walow ay jirtay shaki badan oo ah inay qabeen covid xitaa ehelkooda lama baarin oo lama eegin mid ka mid ah sababahaas
aanan u sano iyadoo adduunka ay ku yar yihiin qalabka baaritaankuba marka waa inaad isticmaashaa qalabkaaga oo aad u isticmaasho si caqli ku dhisan ma ahan oo keliya Mumbai dhaqaatiirta dalka daafihiisa ku sugan ayaa ii sheegay in dadka xaaladaha caafimaad qaba aan dhimashadooda loo xisaabin covid dhibaatada kale Hindiya ka jirta waa heerka baaritaanka kana mid ah kuwa ugu hooseeya adduunka taasi oo ka macno ah inaanu jirin sawir buuxa oo ku aadan sida xaaladda halkan ay u xun tahay dhakhtar ka soo jeeda koonfurta Hindiya ayaa sharaxaysa waxay arkayso sidoo kale iyana ma doonayso in la aqoonsado From my own eyes, they're not testing. dadka ma baarayaan waxaa jira dad badan oo imanaya oo astaamihii leh waxay doonayaan inay baxaan oo ay qaadsiiyaan dadka kale ma garanaya inta qof ee uu ku dhacay diyaarna uma nihin mana jirto hab aan ku xakamayn karno aad ayaanu cabsi qabaa shakhsi ahaan iyo dhakhtar ahaanba wasaaradda caafimaadka Hindiya kama bixin jawaab su'aalaha BBC-da ee tirada rasmiga ah ee covid dhibaatadu sidii hore ayay jiri doontaa laakiin mar horeba madaxweyne ayaa jiray agabkuna waa sii yaraanaya waa inaan saacado sugnaa inta bukaanka cisbitaalka la dhigayo sidaasi ayay inoo sheegeen shaqaalaha caafimaadka ee ku sugan dalhi toddobaadyo Hindiya waxay ku jirtaa xanibaad kaasi oo sii socon doona ilaa iyo 3 May qaybo badan oo waddanka ka mid ah si adag ayaa looga dhaqan geliyay waxaa la rumaysan yahay inay culayska ka yareysay cisbitaalada ilaa xad laakiin khubarada ayaa leh la'aanta baaritaan ballaaran dallada jeka ma qabo inuu ka guulaysto fayraska More sick people will waxaanu caawina eegi doonaa oo inoo soo socda qaybta daryeelka degdega ah ee cisbitaalada soo dhawaada daawadayaal weli waxaa daawanaysaan caawiya caalamka anoo cabdiraxmaan badhaan idinla socodsiinaya wararkan waxaa ugu waaweynaa caawa madaxweyne Trump ayaa gebi ahaanba hakiyay lacagta dowladda Maraykanku ay siin jirtay hay'adda caafimaadka adduunka ee WHO isagoo si ba'an u weeraray hay'addaasi iyagoo caalamkuna uu imika la leeyahay wuxuu ku jiraa xaalad adag oo safmarka ah magaalada Muqdisho waxaa saacadda la joogo ka bilowday bando ay dowladdu soo rogtay waxaa wax yar ka hor magaalada qaybo ka mid ah lagu arkayay gawaadhi boolis ah oo dadka u sheegaya inay bandooda u hoggaansamaan oo ay guryahooda ku xaroodaan waxaa warbixin saacad ka hor uu ku eegayo duruufahaasi ku gadaaman bandooda inoo diyaariyey qaalib xasan baaruud waa Muqdisho saacad ka hor waqtigii bandowgu bilaaban lahaa laakiin magaaladu way camiran tahay degdeg iyo caraaba toonna ma jirto awood iyo isxilqaan midna ma muuqdo bandowgu waxa uu magaalada saarnaanayaa saacadaha u dhaxeeya 8 habeennimo ilaa 5 subaxnimo lama cayimin muddada uu bandowgu magaalada saarnaan doono lamana hubo in dadweynuhu ay u hoggaansami doonaan amarka dowladda laakiin amarka dowladdu ma ka hirgalay xeebta Liido oo hore loo xidhay labada gelinba xeebtu way camirnaan jirtay laakiin maanta dadkii intii badnayd qashin ayaa beddelay iyo dhallinyaro aan wacdigu gaadhin ama iska indhatiraya guud ahaanba waxaa dhammaaday maalmihii dalxiiska dabaasha iyo laafyoodkii lagu cabbi jiray laydha fiidnimo maadaama ay kaabayaasha caafimaadka ee dalku aad u liitaan khuburo badan ayaa aaminsan in tallaabooyinka ugu habboon ee lagaga hortegi karaa masiibada fayraska corona ay yihiin wacyigelin bulsho kala fogaanshaha dadka iyo guryaha oo la joogo halkii bukaanka lagu dabiibi lahaa sariiraha cusbitaallo aan dawo lahayn waa talo fudud in la fahmo ama la raaco haddii aad dhaqaale haysid laakiin dadka badankiisu waa sabool muruqmaal ah gaajo guriga la joogna talo ma aha
haddaba waxaa muhiima dejinta siyaasad iyo qorshe isu dheelitira baahida dadka iyo ka hortagga masiibo caafimaad oo aan awood loo hayn wacyigelinta iyo ka hortagga fayraska corona waxaa caqibad ku noqon kara dhaqanka bulshada iyo qaybo ka mida culimada oo ilaa iyo hadda masaajidda camiran ka doorbidaya caafimaadka muuminiinta waa tahay haddaba si aan u eegno xaaladda guud ee koronaha iyo soomaaliya waxaa magaalada stockholm ee sweden igaga soo biiraya dr khaliif bile oo ah madaxii hore hay-adda wh ee caafimaadka adduunka ugu qaabilsan dalka bakistan dr khaliif soo dhawow waan arkaynaa dowladda soomaaliya bandoobe kusoo rogtay caasimadii si looga hortago faafista koronaha maxay tahay muhiimadda ugu weyn si cudurkan faafistiisa dadkii soomaaliyeed iyo soomaaliyaba loogaga hortago aad iyo aad baad umahadsan tihiin marka horeysa waxaan salaamayaa waay dhammaan xubnaha bbc-da iyo dhegeystayaashiinaba xanuunkani muxuu ahaay si wanaag innaka xaggeenna wuxuu inoo soo gaaray waqti dambe oo adduunka uu soo maray dad badan laayay marka xanuun shaki ku jira ma aha waxaan maanta in hubno inuu yahay cudur muxuu ahaay adduunka ka jira ilaa 120 iyo ziyaado kun qof muxuu ahaay u dhimatay 2 milyan ku dhawaadna u boqoodeen la hubiyey inay xanuunka qabaan marka muxuu ahaay dalkeenna waa xanuun soo galay oo hadda ilaa 60 qof ay laga helay 2 qof u dhimatay marka ma aha muxuu ahaay malaawaal waa xaalad dhab ah waana xaalad khatar ah markii waan gartay doctor maxaad is leedahay markaad adigu eegto dhakhtar weyn baad soo shaqeeyay soomaalida dhaqankeeda waad garanaysaa maxaad is leedahay waa caqabadaha ugu waaweyn ee xaggii dhaqanka soomaalida markaad eegto hor istaagaya in cudurkan faafistiisa laga hortago rumaantii wariyihii naga horeeyey erey badan oo muhiim ayuu sheegay dhibaatada u weyn waxa weeyaan muxuu ahaay waxaa jira caqabado soomaalida muxuu ahaay u badan u gaar maaha laakiin u badan waxaa ka mid ah muxuu ahaay caqabadaha in dadka muxuu ahaay aqoontoodu muxuu ahaay xagga xanuunka ay weli u baahan tahay in la muxuu ahaay xoojiyo oo baraarujin iyo muxuu ahaay iyo wacyigelin iyo muxuu ahaay aqoon kordhis la siiyo si qof kastiba oo ku nool dalka uu muxuu ahaay aqoon isaga iyo qoyskiisa muxuu ahaay ku filan uu helo taasi waxaa ku xigta in dadku ogaadaan in xanuunkani uusan ahayn uu yahay xanuun laga hortegi karo xagga caafimaadka xagga nadaafadda xagga gacmo-dhaqashada xagga kala fogaanshaha hadda aan sheegaynay iyo xagga muxuu ahaay qofku inuu ka dirko oo guljoog noqdo muxuu ahaay waxaa caqabadaha kale oo haysta waxa weeye inaku hadda dadka dhinta ma tirino marka ma ogaan karno muxuu ahaay imise qof baa xanuunka u dhintay waxaa loo baahan yahay in barnaamijyo dhaqan oo bulsho laga sameeyo gobol kasta degmo kasta ee xanuunka muxuu ahaay lagu ogaado dadka lagu wacyigeeyo dabeedna muxuu ahaay aynu samayno guddiyaal qaran ma aha caafimaadka keliya mas-uuliyadda in la saaro guddiyaal qaran oo ay madax ka yihiin ra-iisul wasaaraha xagga heer federaal iyo madaxweynayaasha iyo muxuu ahaay madaxda gobolada oo ay guddiyaashaasi muxuu ahaay dagaal cad kula geliyaan xanuunkaasi waa safmar waana dhul xaaqi yani geeri badan baa ka iman karta haddii aan wax laga qaban markaa dayalsi weyn oo baana waxaan doonaynaa culimadu inay muxuu ahaay ay fahmaan oo muxuu ahaay ay ka qayb galaan aad baa loo ciseeyaa culimadeenna aqoon badan bay leeyihiin inay ka qayb galaan cilmi fahamka dhabta oo diintii iyo aqoontii caafimaad labadaba isu geeyo oo markaa muxuu ahaay talabada qaado waxaan kusoo gabagabanayaa doctor waad og tahay dalka sweden joogto iyo dalkan ingiriiskanu joogna ama britanba soomaali badan ayaa fayrasku galaaftay oo iyagoo waddamadan jooga maxaa dadka soomaaliyeed gudaha joogaan ama dibaddaba aad kula talinaysaa fariin caafimaad caawa fariinta caafimaad oo weyn oo muxuu ahaay halkan aan ka baranay aan ka aragnay waxa weeyaan innaga guryaheenna waxaa degan dad badan oo muxuu ahaay da' kala duwana waxaa degan awoowe waxaa degan adeer waxaa degan caruurtii dhalatay iminkada marka muxuu ahaay xanuunku muxuu ahaay dadkii ma kala fogaan karo oo kala fogaanshahaasi wuxuu noqday xataa dibadda yurub dhexdeeda
ayuu dhibaato noqday waxaa talada weyn waxa weeyaan in aynu samayno guddiyaal bulsho oo u wareega muxuu ahaay deegaamada xaafadaha oo u sheega muxuu ahaay dadka inay muxuu ahaay halkooda ku ekaadaan u sheega qofkii xanuunsadane soo ogaada muxuu ahaay dhibaatada u weyn waxa weye sidee loo ogaanaya qofka muxuu ahaay xanuunka loo celinayaa haddaan la ogeyn qofkii xanuunsaday iyo qofka u dhintay labada aad baad u mahadsan tahay dr khaliif oo stockholm ikaga soo biiray waktigaaga waxaanu hore ugu soconaynaa xagga caafimaadka koronaha qaybta daryeelka degdega ee cisbitaalladu waa waax shaqo qaara qabata cisbitaallada ay ku dhex yaallaanna waxaa lagu daweeyaa dadka xaaladoodu ay halista tahay waxaana yaalla qalab gaar ah oo loogu talagalay in si joogta ah loola socdo xaaladda bukaanka iyo weliba shaqaale caafimaad oo si gaara ugu tababaran xaaladaha si adag bukaamada fayruska koronaha waxaa gaar ula soo gudboonaada iyaga neefqabad iyo sanbabka oo daciifa sidaas darteed waxaa la dhigaa qaybta daryeelka degdega ah si gacan looga siiyo inay neefsadaan maxamed xaraare ayaa eegaya bukaanka ugu liita isbitaal kasta waxaa la seexiyaa qaybta daryeelka degdega ah ee ICU-da loo yaqaano waxaa halkan la geeyaa qofku marka uu u baahdo daryeel gaar ah ama in si joogto ah oo hoose loola socdo inta badan dadka halkan la jiifiyo waxa ay ku jiraan xaalad degdeg ah oo soo food saartay mid ka mid ah xubnaha jirkooda dadka qaada fayraska corona waxaa halkan loo keenaa sababo la xiriira in neeftu dhibayso sariiraha yaalla qaybtan waxaa ku rakiban qalab badan oo kaabaya in xubnaha jirku kabsadaan tusaale ahaan qalabka hawada waxa uu qofka ka caawiyaa inuu neefsado bukaanka ku jira qaybtan waxaa lagu xiraa mashiino fara badan oo kala duwan oo loo mariyo tubooyin iyo waayaro si loo kormeero xaaladooda shaqaalaha caafimaadka ee qaybtan jooga waxa ay leeyihiin takhasus gaar ah bukaan kastana waxaa loo xil saaraa hal kalkaaliya laakiin masiibada fayraska corona darteed BBC-da waxaa soo gaaraysa in shaqaaluhu ay iminka la tacaalayaan bukaan fara badan nasiib darro dadka qaarkii xanuunka oo laba kacleeya dartii waa ay u dhimanayaan laakiin qaar ayaa bogsoonaya marka qof ilaa xad bogsoodo waxaa loo wareejinayaa qaybaha kale ee isbitaalka waxay halkaasi kusii sugnaanayaan maalmo toddobaadyo ama bilo waxaanay ku xihan tahay xaaladda bukaanka marka laga soo saaray isbitaalka dabadeed waxay u badan tahay in qofku uu u baahan yahay in wakhti badan oo baxnaano ah uu guriga kusii nagaado wararka ciyaarahan haddaynu eegno iyadoon ciyaari jirin ciyaartooygii dhexda uga ciyaari jiray Manchester United Fellaini oo qaaday isagoo cudurka coronaviruska oo dalka Shiinaha ku qaaday ayaa cisbitaal halkaasi ku yaala ka soo baxay waxaanu ciyaartooygu sheegay inuu imika ladnaaday oo xumadii ka jabtay ciyaartooygani waa ciyaartooy ka tirsan qaranka Belgiumka 3 toddobaad ayuu dalka Shiinaha ku jira cisbitaalka waxaana u ciyaaraa naadiga dalka Shiinaha ee la yiraahdo Shandong Luneng kooxda dalkan Ingiriiska ee Newcastle United ayaa la filayaa in la kala iibsado oo gacanta la isu dhiibo sida laga dheehday waraaqo laga soo xigtay mulkiilaha kooxda imika Mike Ashley ayaa waxaa jira heshiis dhex maray isaga iyo Amanda Stepheney maalqabeenadan Stepheney ayaa safka hore kaga jirta hawsha la doonayo lagu iibsado tiimkaasi oo sanduuqa qaranka Sacuudiguna uu dhinac kaga jiro iyo waliba walaalaha Rubens waxaa lagu qiyaasay in 367 milyan oo dollar qiimaha Newcastle United ay tahay labada dhinacba way diideen inay tafaasiil bixiyaan in badan baynu ka hadalnay koronaha caawa waxaan idinkaga tegayaa isla sheeko corona ku saabsan waa ruuxaanta koronaha waa hab cajiiba oo dadka looga digayo inay baxaan waqtiga lagu jiro bandooda la fulinayo xaafadaha deegaanka ku yaala bartamaha gobolka Java ee Indonesia ayaa waxaa loo dhigay ruuxaan barnaamijka intaasi ku dheeyahay waxaan idin leeyahay nabadgelyo